عبد الرحمن بل waxaad warbixin naga siisaa wararkii ugu dambeeyay duulaanka dhanka diyaaradaha ee dawladda Itoobiya ay ku qaaday fariisimaha jabhadii OLF ee u dagaalami jirtay xoreynta gobolka Oromiya maxamuud horta jabhadda OLF ee u dagaalanta xornimada Oromiya dagaalami jirtay ilaa iyo haddana u dagaalamaysa iyo damada militariga Itoobiya ee kayaa yaqaano waxa u dhaxeeyay dawaana amba dagaal aad u culus oo afantari oo lugta ah iyo kuwa cirkaba waxa ugu dambeeyay marka hadda in diyaarado iyo duqeyn lagu bilaabo iyaguna ay ka qabsadaan ciidamada militariga ah fadhiisimo sidoo kale fadhiisimo kale oo ay ciidamada Oromiya lahaayeen ay cagta mariyaan ciidamada militariga kadib ay timaado in duqeyma ay dhacaan عبد الرحمن maxaa xiligan ku soo beegay in dawladda Itoobiya ay diyaaradaha dagaalka ay ugu tala gashay inay kula dagaalanto cadow banaanka ay u adeegsato jabhadda xoreynta Oromiya maxamuud horta in dagaalka loo adeegsado diyaarad waa marxalad uu gaaro oo dantu ku qasabto cid diyaarad leh cid kasto ay kula dagaalamayso waa marxalad ay dantu ku qasbayso in diyaarad lagu la dagaalamo goobta uu gaari waayo afantariga gobolkan la yiraahdo oromadu ku badan tahay Daawud Ibsa uu ka soo jeedo hadda la duqeeyay lagu duqeeyay diyaaradaha waxa ku awood badan jabhadan oo OLF Oromiya maadaama ay awood badan tahay dabcan waxa loogu maaro waayay in afantari lagu xaliyo taasa qasabtay in diyaarad lagu duqeeyo si kasta waxa ku bilowda khilaaf عبد الرحمن ma waxa la isdhihi karaa marka ciidamada Itoobiya waxa looga itaal roonaaday dhanka afantariga sidaas ayayna u isticmaalayaan diyaaradaha dagaalka maxamuud waa la isdhihi karaa sidoo sababtoo ah gobolkan uu ka soo jeedo gudoomiyaha jabhadda Oromiya ee Daawud Ibsa waa gobolka dagaalku aad uga socdo afantari ahaana inay jabhaddu ku awood badatay la sheegayaa bal waxa la sheegayaa oo hadda la isla dhaxmarayo waradan la hubinay sheegayeen in shalay la soo riday diyaarad kaas lama xaqiijinayo laakiin baraha bulshada ayaa aad loogu bunbunaya in la soo riday diyaarad ka qayb qaadanaysa duqeymihii lagu dagaalamay ciidamada Oromiya عبد الرحمن diyaaradaha dagaalka ee xilligan adeegsanayso dawladda Itoobiya ay ku duqeynayso fariisimaha jabhadda waxa la sheegayaa iyadana in dad shacab uu ka soo gaaray dhibaato arintaasi marka maxay kula tahay inay keeni karto mustaqbalka horta maxamuud gobolkan ama wadan iyo daryeelka shacabka ama dadka maatida danyarta waa wadan dadka shacabka ee ku nool la isku dul dagaalami jiray waa wadan nasiib u yeeshay inay jabhado iyo kolba xukuumadda ka talisay ku hardamaan marka wax dheeraada ma aha dadka hadda la burburinaya iyo dadka diyaaradu wax yeelayaan waa uun soo socotay tu hadda bilaabanaysa ma aha khilaafka u dhaxeeya jabhadda Oromiya iyo maamulka Abiy Ahmed ma lagu xalin waayay qaab wada hadal ah marka la adeegsanayo talaabo military gaar ahaan diyaaradaha dagaalka marka lagu duqeynayo fariisimaha ay jabhaddu lahayd kulay hadii la awoodo waa lagu xalin lahaa sida aan dareemayno kulama way dhacaan markasta lagaga wada hadlayo xaaladda Oromiya jabhadda iyo dawladda waxa shalay la isugu yeeray oo Abiy Ahmed uu isugu yeeray saraakiisha ugu sarreeyay ee dhanka ammaanka uu kala xaajoonayo sidoo xal ugu heli lahaa khilaafkan soo cusboonaaday ee jabhadda Oromiya u dhaxeeya iyo dawladda federaalka dabcan uu isaga dagaalku isaga iski u socday ee dagaal aan in badan in la joojiyo aan la isku dayin uma muuqdo sida marka aad aragto ra'iisul wasaaraha hadaladiisa shirarka socda gudiyada la dhisayo ee lamaha ammaanka gudiyada xuduudaha marka shirarka kolba ka dhacaya caasimada Naazireed meel kasta marka aad aragto ololaha iyo qabanqaabada iyo shirarka la wado ma aha dagaalku dagaal aan in badan in laga hortago aan la isku dayina waa dagaal iski u socda gabagabadiina waxa ay booqdeen mas'uuliyiinta komishinka booliska asluubta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo kuwa heer deegaan xabsiga asluubta ee gobolka Faafan iyadoo markaas ay indheeyeen maxaabiista goobtaasi ku xidhan oo ay wareysi la yeesheen iyadoo maxaabiistan ay ka warbixiyeen sida loola dhaqmo isla markaana ay sheegeen in waqti xaadirkan isbedel wanaagsan uu ka jiro xabsiga halkaana ka cadeeyeen in waqti xaadirkan ay jirin wax tacadiyo oo loo geysto maxaabiista xaaladooda caafimaad iyo cunto ay aad u wanaagsan tahay hadda anagu lama oran karo maxaabiis baan runtii anoo 24 saac wala iyo adaa wala soo booqdaa waan la kulmaa
dhallinyarada saaxiibada iyo ciddii ii timaanaysa waa maaragtay toos bay noo tahay telefoonka waan ku hadla waa la ii fasaxay xaafadda toos baan oola kulmaa cid kastaba maaragtay ciddii imaanaysa iyo ciddii eheli iyo xagga caafimaadka toos weeyaan waan helnaa ciidanka halkan jooga qaabka uu noola dhaqmo waa qaab maaragtay anshaxeed oo aad u wanaagsan weeyaan kadibna waxay u sii gudbeen mas'uuliyiintan isku dhafka ah xerada qomaandaha halkaas oo komishinka booliska asluubta dawladdeegaanka Soomaalida si ku meel gaar ah loo siiyay inta ay xabsi ka dhisan doonaan iyadoo ay markaasi mas'uuliyiintan ay kormeereen goobtani ee qaybaha kala duwan ee goobtan ay ka kooban tahay ee sida goobta cuntada jiifka oo leh adeegyo kala duwan oo adeeg siin doona maxaabiista iyadoo ay xusid mudan tahay in xaruntan ay leedahay goobta barashada xirfadda farsamada gacanta ee goobtii lagu sameeyay adeegyadani iyo goobtii loo iibgeyn lahaa intaas kadib ayaa waxa ay mas'uuliyiintan ka socotay komishinka booliska asluubta jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya iyo kuwa deegaanka ay si wada jir ah u booqdeen xabsiga albaabada loo laabay ee jaloogaadeen kadibna markii halkaasi ay gaareen ayaa waxa ay booqdeen waaxihii kala duwanaa ee xabsigan uu ka koobnaa iyadoo halkaan ay ugu sharaxeen mas'uuliyiintani tacadiyadii kala duwanaa ee xabsigan ka dhici jiray qaar ka mid ah dadkii iyagu hadda ka hor soo maray xabsigan oo ay sharaxaad ka siiyeen gaboodfaladii kala duwanaa ee bulshada lagula kici jiray ojarka meelo ka mid ay ahayd qofka waa la gelin jiray maryaha waa laga saari jiray mataqaanay waxaan qashinna waa xaarna waa lagu shubi jiray bulacad dhinaca hoos oo yaleer galay leedahay markuu galo waxa la dhigi raashinka hoo baa la dhigi markuu saa u soo baxo yaa lagu shubaya wuxuu ku jirayaa qofku muddu ku jiraya hadduu xagga ka soo bixi waayana xaggana duleel kale oo xaggana laga shubaya habeenkii markuu gabalku dhaco ilaa salaada subax toojar baa ka jiray xirada waxaan u baahannahay dadkii lagu dhibaateeyay maadaama ka mid nahay in dadkii toojarada geystay talaabo laga qaado sharciga wax ka weyn ma jiraan hadduu federaal daraja oo taageeri jiray yahay dadkaas dhibaatada geysan jiray in sharciga la hor keeno gabagabadii booqashadan ayaa markii ay soo dhamaatay waxa aan waraysi la yeelanay komishineerka komishinka booliska asluubta jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Jamaal Abaaso oo nooga warbixiyay goobihii kala duwanaa ay markaasi mareen iyo waxyaabaha ay ku arkeen አንድ ሁለት መሰረታዊ ነገር ነው ያየሁት እጅግ ውስጥን የሚነካ ነገር ወገን በወገን ላይ የማይሰራ ጥፋት anigu waxaan soo arkay laba arrimood oo muhiim ah midda koowaad xabsigii hore ee deegaanka waxaan ku soo arkay wax aan marnaba la is oran karin muwaadin dalka u dhashay ayaa eheladiisa iyo qaraabadiisa ama muwaadiniinta kale ee walaalihiisa ku sameeyay dhacdadan foosha xun meelo kale oo dalka ka mid ahna waa laga sheegayay laakiin waxyaabaha aan xabsigan la xidhay ku soo arkay waa wax uuna qalbiga iyo caqliga aadamuhu marnaba qaadan karin oo cado ilaahay ka imanayso oo aan loo malaynayn in ay waxyaabahan oo kale Itoobiya ka dhici karaan hase yeeshee waxaan qiyaasayaa inaan taariikh ahaan u haysan doono xabsigiina waa la xidhay oo goob taariikhi ah ayuu inoo noqon doonaa arrinta kale ee aadka ii farxad gelisay ee aan soo arkay waa hanaanka sharafta leh ee maxaabiista hadda loola dhaqmo iyadoo aan u malaynayo xitaa haddii maxaabiistan la sii daayo inayna meel kala qaban doonin sababtoo ah daryeel aan dadka kale ee caadiga loo sameyn ayaa xubnahan dhaqan celinta loo hayo loo sameeyay iyadoo halkaan ay ugu sharaxeen mas'uuliyiintani tacadiyadii kala duwanaa ee xabsigan ka dhici jiray qaar ka mid ah dadkii iyagu hadda ka hor soo maray xabsigan oo ay sharaxaad ka siiyeen gaboodfaladii kala duwanaa ee bulshada lagula kici jiray ojarka meelo ka mid ay ahayd qofka waa la gelin jiray maryaha waa laga saari jiray mataqaanay waxaan qashinna waa xaarna waa lagu shubi jiray bulacad dhinaca hoos oo yaleer galay leedahay markuu galo waxa la dhigi raashinka hoo baa la dhigi markuu saa u soo baxo yaa lagu shubaya wuxuu ku jirayaa qofku muddu ku jiraya hadduu xagga ka soo bixi waayana xaggana duleel kale oo xaggana laga shubaya habeenkii markuu gabalku dhaco ilaa salaada subax toojar baa ka jiray xirada waxaan u baahannahay dadkii lagu dhibaateeyay maadaama ka mid nahay in dadkii toojarada geystay talaabo laga qaado sharciga wax ka weyn ma jiraan hadduu federaal daraja oo taageeri jiray yahay dadkaas dhibaatada geysan jiray in sharciga la hor keeno gabagabadii booqashadan ayaa markii ay soo dhamaatay waxa aan waraysi la yeelanay komishineerka komishinka booliska asluubta jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Jamaal Abaaso oo nooga warbixiyay goobihii kala duwanaa ay markaasi mareen iyo waxyaabaha ay ku arkeen አንድ ሁለት መሰረታዊ ነገር ነው ያየሁት እጅግ ውስጥን የሚነካ ነገር ወገን በወገን ላይ የማይሰራ ጥፋት anigu waxaan soo arkay laba arrimood oo muhiim ah
midda koowaad xabsigii hore ee deegaanka waxaan ku soo arkay wax aan marnaba la is odhan karin muwaadin dalka u dhashay ayaa eheladiisa iyo qaraabadiisa ama muwaadiniinta kale ee walaalihiis ah ku sameeyey dhacdadan foosha xun meelo kale oo dalka ka mid ahna waa laga sheegayey laakiin waxyaabaha aan xabsigan la xidhay ku soo arkay waa wax uuna qalbiga iyo caqliga aadamuhu marnaba qaadan karin oo cadho ilaahay ka imanayso oo aan loo malaynayn in ay waxyaabahan oo kale Itoobiya ka dhici karaan hase yeeshee waxaan qiyaasayaa inaan taariikh ahaan u haysan doono xabsigiina waa la xidhay oo goob taariikhi ah ayuu inoo noqon doonaa arrinta kale ee aadka ii farxad gelisay ee aan soo arkay waa hannaanka sharafta leh ee maxaabiista hadda loola dhaqmo iyadoo aan u malaynayo xitaa haddii maxaabiistan la sii daayo inayna meel kale qaban doonin sababtoo ah daryeel aan dadka kale ee caadigaa loo samayn ayaa xubnahan dhaqan celinta loo hayo loo sameeyey waana arrin farxad leh